السلام عليكم. waxaa maanta saaka subaxnimadii 11 barkii gagada diyaaradaha Muqdisho ka soo degay wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea Usman Saalax oo ka mid yahay taliyaha madaxweynaha Eritrea Yamani. wafdiga waxaa isla markiiba loo galbiyey madaxtooyada halkaas oo ay kula kulmeen madaxweynaha iyadoo goob joogayaal yihiin ra'iisul wasaare ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda iyo safiirka Soomaaliya Belgium iyo Yurub noo jooga. wafdigu wuxuu u yimid si xoojinta xiriirka labada dal ee walaalaha Soomaaliya iyo Eritrea. waxay wafdigu fariin ka wadeen madaxweynaha dalka Eritrea Siyaasi Afwerki oo ay u gudbiyeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. wafdigu wuxuu kaloo madaxweynaha uga warramay booqashadii ay ku tageen dhowaan magaalada Hargeysa ee Somaliland iyo waxyaabihii ay kala soo hadleen maamulka Somaliland.